بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليال عاونا وحن كهضلينا نظرية أما theory ليرهدو Maslow theory of Maslow hierarchy of needs وحليرهدو أما Maslow pyramid of needs. هذه عربي لغو ترجمة waxay noqonaysaa هرم الاحتياجات لماسلو. ماسلو muxuu yahay؟ ماسلو waa nin cilmigan nafsada barashadeeda ama psychology wax leeyahay ama cilmi nafs ku takhasusay. ninkaas oo noolaa min 1908 ilaa 1970. ninkaas 1943 ayuu wuxuu qoray kitaab uu fikradan ku soo bandhigay. fikradan maxay ka hadlaysaa? fikradan waxay ka hadlaysaa dadka baahiyihiisa iyo sida looga faa'iideysan karo in la tashjiiciyo ama la dhiirigeliyo. bini aadamku kama maarmo in la dhiirigeliyo, marka habkeeba loo marayaa. ninkaasu marka fikradiisa wuxuu ku soo bandhigay 5 shay oo baahiyaha kamid ah bini aadamka oo kala sareeya. tan ugu hooseysa ama asaasiga ama bilowga ah wuxuu ka dhigay wax la yiraahdo physiological needs ama al-ihtiyaajat al-jasadiyya ama jirka baahiyihiisa. maxaa kamid ah? qofku wuxuu u baahan yahay hawo oo ku neefsado, wuxuu u baahan yahay cabitaan, wuxuu u baahan yahay cunno, wuxuu u baahan yahay waxyaalo hurdo, wuxuu u baahan yahay arrimo noocaas oo dhan. kuwaas marka waa kuwo haddii aan la samayn waxaa kamid ah inuu muxuu ahaa wax dhalo oo dhalitaan, iyadoo waa ixtiyaajaadkaasay kamid tahay si bini aadamku uu jiro. taa markuu qofku ku gudbo oo uu helo, wuxuu u gudbayaa darajo labaad oo la yiraahdo haddii ilaahay kuu roon yahay wax la yiraahdo safety baa la yiraahdaa ama ammaankiisa, amnigii qofka. maxaa kamid ah? meeluu seexdo buu u baahanaya, wuxuu u baahanayaa in uu dhibaatada iyo dilka iyo baaba iyo waxa uu ka raysto, wuxuu u baahan yahay meeluu qabowga iyo waxyaalaha noocaas oo kale iyo kulaylka iyo uu ka galo. marka waxyaalaha ulaalinaya ammaankiisa oo ay kamid tahay inuu meel ammaan ka jiro iyo dowladda ka jirto inuu ku noolaado, waxay tahay tan labaad oo daruuri oo isagana. darajada markuu ka baxo wuxuu yiri wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo social needs ama al-ihtiyaajat al-ijtimaaciyya. Soomaalina lagu oran karo muxuu ahaa dad la joogid buu u baahan yahay, baahi dad la joogida. sidaad ogtihiin bini aadamka waxaa la yiraahdaa waa social animal ama waxaa la yiraahdaa xayawaan ijtimaaci. waxa weeye wuxuu u baahan yahay dad uu la joogo, qofku kaligiis ma noolaan karo. saa awgeed baad waxaad arkaysaa dadka la xiro in loo xiro qol kaligiis lagu xiro, marka dambe inuu iska waashaa dhici karta markuu dad la hadlo oo uu la sheekaysto uu waayo. marka social needs ka faa'iidada maxaa kamid ah? inuu saaxiibo yeesho, inuu caa'il reer yeesho, inuu yeesho qolo oo u nasab sheegto, مثلا say qabiil oo kale, wadan oo kale, magaalo oo kale, gobol oo kale iyo wixii la mid ah. iyo urur مثلا ururada kamid ah iyadana urur islaamiya, urur siyaasiya, urur saas oo kale. marka taasna waxaa la yiraahdaa social needs ama al-ihtiyaajat al-ijtimaaciyya. lagama maarmo kulligood baahiyo wey. markuu darajada saddexaad ka baxo wuxuu u baahanayaa wax la yiraahdo self esteem ama ego baa af ingiriiska lagu yiraahdaa. carabigana waxaa la yiraahdaa ixtiraamu dhaati, yani nafsadiisa inay noqoto mid muxtaram ah. taasna maxaa ka dhalanaya? in dadku tixgeliyaan, inuu qof sharaf le noqdo, in qof aan la yasin u noqdo, inuu qof noqdo dadka dhexdiisa la maqlo warkiisa iyo wixii la mid ah. darajadaas afarta markuu ka baxo darajo shanaad buu u gudbayaa. darajada shanaad maxay tahay? darajada shanaad waxa weeye self actualization oo macnaha taxqiiqu dhaat. wuxuu rabaa darajo sare oo cid kale aan gaarin inuu gaaro. madaxnimo ha noqoto,
ha noqoto haddii alla kuu roon yahay inuu wax alifo, inuu koro oo nafsiyan uu koro, inuu noqdo qof aan laga xanaajin karin, inuu noqdo qof isku kalsoon, inuu noqdo qof farta lagu fiiqo. shantaa darajo ayuu Maslow wuxuu u qaybiyey baahiyaha bini aadamku ay leeyihiin. wax oo perfect ah oo dhan oo kamaal ah oo sugan ma jiraan, wax kastoo waxbaa laga sheegaya, xataa fikradda dad caaridaya waad arkaysaa, laakiin waxay noqotay mid qabsatay jaamacadaha, iskuullada, tababarada, mid meel walba lagu soo qaato. marka waad u baahan tahay Maslow hierarchy of needs waxa la yiraahdo, ama Maslow pyramid of needs inaad baratid, lianna waxaad ku arki doontid jaamacad haddaad gashid, horumarinta bini aadamka oo nafsa hadday noqoto. shantaas marka shay khasab ma aha inay saa isugu xigaan, oo waxaa dhici kara qof ay kala weyn tahay inuu guri helo, inuu madax noqdo, ama in la sharfo ka jecel, oo waxay ku leeyihiin bakti muxuu aha looma cuno, baahi bakti looma cuno. marka waa nooc min al kala duwanaansho ah. marka mawduuca waxaan filayaa inaad maanta caawa ka faa'iidaysateen oo noqon doono mid haddaad la kulantaan aan idinku cusbayn. intaas ayaan caawa kusoo koobaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.